waa kilib yaab leh waa kilib aan u bixiyay barwaaqadu Ilaahay ku siiyay dib u eeg kilibta hadda daawatiin Soomaaliyeed waxaan idinka rabaa qof kasto daawada inuu fikirkiisa ka bixiyo kuwiina wax qora ina wax ka tiraahdin waa oday soo yara daahay meeshuu rababa ku soo daahee fadhi ku dirir ha ka yimaado ha soo tasbiixsado masaajidka ha ka yimaado ama arrimo kale ha ku maqnaado ha ka yimaado wuxuu yimid dhulkii oo black ice wax la yiraahdo fariistay waa roob da'ay oo dabayl qabow intay ku dhacday dhala noqday ma socon kartid ilaa gurguuratid mooyee gurguura تعلمت ساعد متى gurguura ala أنا gurguura أنا فيها gurguura وأقطع gurguura قفلكم مقالك مطالب gurguura أبتها gurguura الله gurguura تعلمت ساعد متى gurguura gurguura الله gurguura أنا فيها gurguura وأقطع gurguura gurguura su'aashaydu marka waxay tahay Ilaahay dhulku na siiyay iyo meeshuu na dhigay dhulkeena cimilada fiican oo hawada fiican oo meel adduunka lamid la arag odaga haduu joogi lahaa baraawe haduu baydhaba joogi lahaa haduu baar dheere iyo boosaaso iyo berbera joogi lahaa haduu xamar iyo xiraale joogi lahaa arintaas qabsatay oo ku dhacday miyay ku dhici lahayd barwaaqada Ilaahay na siiyay waa inaan eegno waa inaan qabyaalada ka fogaano nin jeclaysiga ka fogaano ree hebel meeshayna keentay waad arkaysiin dhibaatada qurbada ku haysata dadka waad arkaysiin ninka da'da ah oo halka ku baaba'ay oo sidaa noqday waa u jeedin dhalinyaradii yaryarayd qurbadii qaban weyday markay waxba ka keeni waayeen tahankoodii jabay qoryihii ilkaha ku qaatay isku laynahaya qurbadaas iyo barafkaas iyo dhibaatadaas alxamdulillah aan niraahno Ilaahay aan u xamdino aan wadankeena iyo barwaaqadeena iyo Ilaahay wuxuu na siiyay aan iimaansanno aad baan idin salaamayaa guuleysta waa walaalkiin Axmed Boos